maamulka gobolka Sool ay weheliyaan taliyaasha qaybaha 11aad iyo qaybta 7aad ayaa kulamo gaargaar ah la yeeshay ardayadii shaqaqadu ku dhexmartay deegaanka Adhacadey kuwaas oo ay ka hadleen fulinta go'aanadii xukuumaddu ka soo saartay shaqaqadaas waxaana labada dhinac la gudoonsiiyay lacago loogu talagalay dadkii wax ku noqday shaqaqadaas taliyaha qaybta 11aad gaashaanle sare Ismaaciil Cawaale Doolaal iyo gudoomiyaha gobolka Sool ayaa ka hadlay halkan saaka waxaan isugu yeernay oo aanu kala siinay annagoo fulinayna go'aamadii ka soo baxay Adhacadey shaqaqadii ka dhacday ninkii dhintay iyo nimankii dhaawacmay wixii loo kala xukumay ahaa aaskii iyo shashafadii fiqishin iyo reer cilmi kala gaadhay ayaanu saaka wixii loo kala xukumay siinay waa talaabadii ugu horeysay ee la qaaday go'aamadii sida loo qaaday baana isu daba soconaysaa waxa noogu xigaya haddii la yiraahdo dhulkii sida sharci darrada loo xidhxidhay amba loo kala seereystay amba loo calaamadsaday waxaan u sheegay digreetadii uu soo saaray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amnigu kuna taariikhaysay 8 bisha oo ahayd maalintii khamiista ahayd waxayna ka kooban tahay 8 qodob oo haddii ilaahay ku rayo qusaysa qaybna ay gaar u tahay deegaanka Adhacadey qaybna ay ka wada dhaxayso gobolka oo dhan haddii ilaahay ku rayahay annagoo fulinayna waajibaadkii dawliga ahaa ay noo igmadeen wasiiradii hawsha ku jiray haddii ilaahay ku rayahay waxaanu saaka halkan ku bixinay qarashkii ay xukumeen xukuumadda iyo salaadiinta maalintii khamiista ahayd labada beeloodna ay ku qanceen ee ahayd aaskii iyo shafadii dadkii dhaawac ahaa intaa waxaa daba raaci doona bismillaahi kariim oo ku daba xigi doona fulintii go'aamadii dambe ama go'aamada dhiman hadday tahay dhulka sharci darrada loo ootay iyo hadday tahay mataqaanaa meelaha aan ku habboonayn in degsiimo laga sameeyo iyadoo dhulkaas loo aqoonsay dhul xoolo daaqeena oo ummaddu ay leedahay dhinaca kale mas'uuliyiinta maamulka gobolka Sool oo hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dil oo ay weheliyaan taliyaasha ciidamada qaybaha ciidamada qaranka maayarka degmada iyo goori ee gobolka Sool ayaa gaaray maayarka degmada iyo goori ee gobolka Sool ayaa gaalay kaamam ay ku sugan yihiin dadka xooluhu ka dhamaadeen ee deegaanada Kalbaldaale Dhiir Goobo si xawle iyo Cilmidgaan kuwaas oo ay ku wacyigeliyeen inay ka gurtaan maadaama ay ka soo baxday wareegto wasaaradda arrimaha gudaha lagu mamnuucay deegaaminta iyo kaamamka sharci darrada ah waxa la go'aansaday in dhulkaas aan magaalooyin cusub iyo deegaan dil hor leh aan lagu samaynin naqi weynooda alxamdulillah waxa markaa la ogaaday in ay deegaanka dilayso meesha magaalooyin cusubna ku samaysmayaan hawlo kale oo la sheegi doonana ay ku samaysmeen ayaa la ogaaday in toddobaadaba warkan weynu haynay go'aankii dawladdu qaadatay iyo qaraaradii laga soo saaray deegaamadan aynu kanaynu joogniyo qaar kaleba ka mid yihiin waynu la wada soconnay waxaanu xaqiijinaynaa oo fulinaynaa waajibaadkii dawladdu gaadhay kaasoo dalka iyo dadka labadaba loo daneeyay 3 cisho maanta ka dambaysa 5 cisho la siiyay 5 cisho maanta way tagtay iyo shalay miyahayd adu 4 baarsan 4 cisho idin harsan hallo diyaar garoob haddaad guumays tagaysaan iyo haddaad yogoori tagaysaan iyo haddaad samakaabkan tagaysaan halkii aad tagaysaanba waa la idin gacan siinayaa waxaan u soconay fulintii dekreetadii wasiirka arrimaha gudaha iyo amnigu uu qoray 8 bisha oo ka soo saaray gobolka Sool deegaamadiisa lagu xakameynayay baabiinta deegaanka xoolo daaqeenka ah iyo meelaha mataqaanaa dhulka sharci darrada la calaamadsado iyo baabiinta kaamka jira ee abaartu samaysay saaka waxaanu marnay kaamka la yiraahdo waxaanu ka bilownay Dhiir Goobo
waxaanu isla qaadanay deegaankiisa iyo dadkiisa in la raro waxaanu ku xoojinay kaamka leedahay mataqaana meesha cilmidgaan sidaas sileeg ayaanu isla qaadanay ku heshiinay waxaan ku xoojinay kaamka la yiraahdo si xawle waxaan isla qaadanay in la raro isagana waa ku heshiinay waxaanu tagnay kaamka la yiraahdo kalbardaale sidaas sileeg baan ku heshiinay shaqaduna way soconaysaa waxaan rajayn doonaa biidmillaahi kariim labada casho ee soo socda iyo saddex casho ee soo socda in kaamkaas ay ku soo xoroodaan meelihii aan ugu talagalnay ee aan u cayimnay ee magaalooyinka hore u jiri jiray dadkuna way ku qanacsan yihiin hay'adaha caalamiga iyo kuwa mataqaanaa local NGO-yadaaba iyagana waxaanu farana u sheegaynaa inay halka ugu hagaagan dadkii deegaamada la geeyay ee haday tahay Yogoori Samakaab iyo Adhacade inay ugu hagaagaan oo wixii ay siin jireen dadka halka lagu siiyo saasaan rajaynaynaa waxa kale oo inta noo raaca inaanu iyadana bilaabi doono wixii bari loo gaaro baabiintii dhulkii daaqsimeedka ahaa ee la iska seeraystay ama fuustooyinka la gashtay ama dhagxaanta la gashtay ee sharci darrada ah waxaanu ku soconaa anagu awaamirta qaranka taanu fulinana awaamirta qaranka ta ugu horeysay aanu mataqaan dadka waxaanu soo jeedinaa in ciidamada noocyadooda kala duwan iyo maamulka gobolka iyo degmada la shaqeeya Mawlid Ali Star TV la saanad